xildhibaano wasiiro ka tirsan maamulka Hirshabelle maamulka degmada Buulaburde saraakiil ciidan oo safar dhanka dhulka ah uga soo ambabaxay degmada Buulaburde ayaa soo gaaray deegaanka Aboorey ujeedka safarkani ay mas'uuliyiintani ay ku gaareen deegaanka Aboorey ayaa ahaa sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka ee ku sugan deegaanka ayadoona la gaarsiiyay ciidamada laba neef oo geel ah oo loogu talagalay ciidamada oo ay soo dhiibeen jaaliyada ka soo jeeda deegaanka Aboorey ayaa ka mid ah deegaanadii ugu horeeyay ee laga saaray khawaarijta argagixisada Al-Shabaab mana lahan goobo caafimaad iyo waxbarasho gudoomiyaha deegaanka Aboorey Muuse Degnaas iyo odayaasha dhaqanka Aboorey ayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Hirshabelle maamulka degmada Buulaburde ka codsaday inay si degdeg ah lala soo gaaro goobo caafimaad waxbarasho iyo gargaar maadaama in muddo ay dadkani macluul haysay dhalinyaradii jaaliyada ee geelas maaragtaa ay noo soo dhiibtayna waan u mahad celinayaa waan u duceynaynaa anagana maaragtaa hawshan wadnay inaan si laba laabno ayaan isku dayaynaa haduu Ilaahay yiraahdo waan ku qasbannahay meel kasta godahay ku jiraan inaan uga tabatagno nimankaas khawaarijta ee muslimka xoolihiisa baneestay ee tuuladan arkaysaan xilligii maaragtaa nimankaas ay ku horeysay way shidneeday saan ma ahayn waxa tuuladaas maaragtaa hadda sida aragto u bahdilay waa nimankaas khawaarijta baahi weyn ayaa degmada tuulada Aboorey ka jirto oo hadii mid abaar leh dhowr sano ayay abaar heeday oo hadii kuna mid daaq lahayn mid roobaad lahayn mid dadal lahayn mid caafimaad male hadii ay ku roon yahay iskool male dugsiyaal waaweyn male waxaan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa baahida ugu horeydo umada maanta macluul aad soo gaartay duuxa waxa iskool iyo caafimaad waxa ka horeeya dadka baahi saayida soo gaartay maamulka degmada Buulaburde ayaa iyaguna dhankooda ballan qaaday inay wax waliba oo gargaar ah la soo gaari doonaan intii tabartooda dadka reer Aboorey qaybo badan ay u baahan tahay sida bulshada waxyaabaha oo lagu hormariyo ama maskaxdooda lagu kobciyo qaybtii waxbarashada kale qaybtii caafimaadka laba qof oo xataa iskhilaafta qaybtii lagu kala karsoori lahayo sida saldhigyada booliska oo kale waxaas dhan insha Allah dawladdeena federaalka dawladda goboleedka Hirshabelle dhammaan qaybaheena maamulka xataa intii aan kaalin ka geysan karno waa ka geysan doonaa wixii dadaal nala gudboon wixii kale tana waa wax xaq Allah aan ka saamaxnayn cid raadi karta male waxaan rabaa annaga ujeedkeenu ama aan u imaanay deegaanka Aboorey wuxuu ahaa in aan dhiirigelino ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada deegaanka ee halkan ku sugan runtii shaqada xoogga leh sababay halkan inaan maanta aan joogno si nabada oo xura in halkan aan ugu noolaan waxaan rabaa inaan iraaho aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabnaa insha Allah meelaha kale tood ee lagu sheegaa cadawga xabadka ah wabiga inay qararkooda imaana waxaan rabnaa inaan si wada jir ah aan nimankaas aan uga hortagno bacdama barigan Hiiraan uu xur noqday waxaan rabnaa inaan si wada jir ah aan gobolka Hiiraan inta dhimanna aan u xureyno ka bacdina Hirshabelle aan u gudubno meel kasto Soomaaliya kamid ah oo cadawgaas uu joogana ummad dhiig muslim ku jiro oo dhiig Soomaaliyeed ku jira ee annaga nala midab ah ay joogaan inaan uga daba tagno oo aanan hadafkeenu uusan ku ekaan Aboorey Buulaburde gobolka Hiiraan iyo Hirshabelle uusan ku ekaano hadaf Soomaaliyeed iyo Soomaali sidii looga xureyn lahaa nimankaas aan ku fikirin xildhibaan Xasan Cali ayaana hay'adaha ka howlgala deegaanada Hirshabelle ugu baaqay in ay soo gaaraan deegaanka Aboorey oo la isku haleyn karo amaankiisa horta waxaad ogaanaysaan dhammaan dowlad goboleedka Hirshabelle ama wasiir ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo wuxuu faran yahay meel kasta oo Hiiraan kamid ah ama Hirshabelle kamid ah oo la xureeyo in qofka mas'uulka ah joogo inuu tago asoo Hirshabelle matalay waa go'aan ay soo gaareen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo yiraahdeen dadka waa in loo tagaa baahiyaha ay qabaan la soo gaarsiiyaa nimanka hal su'aal idin weydiinaya nimanka idin haystay oo dhibaatada idin geysanaya maanta wax ay idin ku soo celiyeen ama jirtaa masaajid xitaa idima dhisin Aboorey taariikhdu waxay ugu yimaadeen ay ugu tageen laakiin dadka xoolahoodina waa qaateen dhibaato badan waa gaarsiiyeen ogaada marka nimankaas waa aboor dadka kor saaran rabaan inay cunaan bas aan waxba ku soo celinayn sababtoo meeshaan aan soo marnay saakay meel caafimaad oo MCH kama furno meel waxbarasho muuqato kama furno
maaragtay dugsi quraan oo weyn oo ma muuqdo ma hayno aawo diinta ay sheegayeen meelay dadka wax ku baraayeen oo maaragtay iyo dhaqaalaha ay qaadayeen idinkuma soo celin maalintii ladin xoreeyay xoroodeen dawladdiinni iyo maamulkiinni oo socda idin yimid waxaana ogaa doontaan waxa dawlad la'aanta ay leedahay dhibaatada nimankaas oo maaragtay laga sheegayo waxaad ogaa doontaan maalmo kadib mar dambe oo Aboorey ku soo laaban waxay dawladda idin gashay ogaa doontaan maanta waxaan haysanaa xornimo yaan laga fikirin mar dambe wax la yiraahdo nimanka qawaarijka dalkan maamul doonaya laga fikirin Askari Cali Raage warbaahinta qaranka degmada Bulaburde.